أولاً السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي هو دكتور محمد سياد حسن، دكتور تخصصي داوينتي قليمة عندها كان هولغلا اسبيتال كسومالي السوداني هوسبيتال. 14 نوفمبر سنة والبو waxaa loo asteeyay World Diabetic Day maalinta sokorowga adduunka. Sokorta waxay saameyn weyn ku leedahay indhaha waxayna keentaa indho la'aan. Sokorta waxay keentaa saddexda cudur ee ugu badan ee keeno indho la'aanta adduunka oo ah 1 caadka ama cataract, 2 biyaha indhaha ku furmo glaucoma, 3 in sokorta ay saameyso shabakada dambe ee isha ee loo yaqaan retina eena keento diabetic retinopathy. Diabetic retinopathy waxaa loo kala qaybiyaa 2 qaybta koowaad oo ah non-proliferative diabetic retinopathy. qaybtaas waa qaybta hore markay saameyso sokorta qaybta dambe ee isha. qaybtaas waxaa ku filan in sokorta la kontrolo qofka sokorta qabana oo ku xirnaado dhakhtarkiisa cudurrada guud si loo kontrolo sokorta. qaybta labaad oo ah proliferative diabetic retinopathy oo micnaheedu tahay in sokorta saameyn weyn ay ku yeelato shabakada dambe taasoo keenaysa in xidido yaryar ay ku sameysmaan. xididahaas yaroo keeni karo dilaac markaasna ka dhalanayso in qaybta dambe oo dhiig ku furmo. qofka sokorta qaba waxaa loo baahan yahay in 6 bil ama sanadkii mar uu sameeyo eye check up si oo uu ula socdo xaaladiisa indhaha. Wassalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh.